waxaan isleeyahay nimankii qaraxyada soo diri jiray ayaa weli waqti fiican iyo xuruuf fiican ku nool yihiin marka meelay joogeenna waa joogaan arrintaas waxay noqon kartaa inaan ayaga culays la saarin oo culays uusan saarnayn oo ay fikirayaan waa qodobka labaadna xamar culays laga saaro ciidamo badan lagu daadsho laakiin farshaha markasta way bedelayaan oo haddii meel culays laga saaro qorshe kale u bedeshaa duruufta xasiloon la'aanta siyaasadda ay keenaysan ay ayaga saacidayso oo ay helayaan dad badan oo siyaasad ku mashquulsan oo ayaga ku mashquuli lahaa culaystaasna uu ka degayo marka arrimahaas iyo arrimo badan oo kale ayaan isleeyahay way sabab u tahay waa la dadaalay dhowrkii bilee lasoo dhaafay waa la roonaa laakiin waxa lagu roonaa ma ahayn qorshe istiraatiijiya oo dhamaystiran dadaal yaro xamar laga sameeyay ayay ahayd marka waxaan isleeyahay nimanku mar hadday meelihii ay haysan jireen weli ay haystaan mar haddii canshuurtii magaalada ay weli qaadanayaan oo qarash la-aan aysan hayn mar haddii qalabkoodii iyo hubkoodii iyo waxyaabahoodii ay haystaan ayagaa xilliga munaasabka ah oo ay weerar qaadayaan ayaga ayaa go-aan ka gaaraya ee ayaga go-aan loogama gaaro laakiin ayagu go-aan waxay nooga gaaraan sida aan amnigeena ula falgelayn marka waxaa laga yaabaa maanta ay hoteelo qarxiyaan in hoteeladii iyo baabuur qarax gaarsiisa lagu mashquulo haddii bistooladaydu ay dilka badiyaan in bistooladaydu iyo xaafadihii lagu mashquulo waxaan laakiin weli lagu fikirin nimankii weli waa nool yihiin waa soo duulayaan meelaha ay kasoo duulayaan xoog ha loo weeraro oo ha loogu tago aad looguma fikirin maa qiyaasaya marka dagaalka asaaskiisu waa kaas amnigu inuusan aad ugu mashquulin siyaasadda oo amniga uu ku mashquulana waa muhiim dadkii siyaasiyiintu waa kala jiidanayaan dadka siyaasiyiinta haddaysan wax ku heshiin shacabku qaarna dawladdu taageersan yahay qaarna dadka kale oo siyaasadda danaynaya ayuu taageeraya waxaa laga yaabaa ciidanka amniga sugaaya marka inaan isku si loo arag labo marka dawladda mandate fiican ay haysato waqti fiican ay haysato sida ciidamada ay maogtahay kalsooni u haystaan iyo marka dawladda mandatekeedu dhacayana isma lahan annagaa kusoo shaqaynay annagaa isnaqaana wax yar baa xaalad abuuri kara ciidankii la rabay in loo fahmo inay amniga sugayaan oo guryihii baarayaan oo nafta badbaadinayaan ayaa at the same time waxaa loo fahmi karaa ciidan wax aburinaya marka sideedaba siyaasadda inay degto oo layska fahmo siyaasiyiintu isfahmaan ayaa muhiim ah haddaysan dhicin caqabada ugu weyn dhinaca ay ku leedahay waa dhinaca amniga waxaa loo baahan yahay waxyaabaha soo soco kow in dawladdu muujiso in hay-adaha amniga ka shaqaynaya dadka ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda waa qodobka labaad in la fahamsan yahay marxaladda lagu jiro ciidamada dadka saraakiisha ee maamulaysan lagu wacyigeliyo lagu tababaro oo dadka howlgallada loo diraayo tababar joogtaa iyo wacyigelin joogtaa la siina saddex waxaa aada u muhiima dawladdu gacanna inay doorasho iyo wadahadalka siyaasadeed looga shaqeeyo gacanna nimankii lagu raacdaysan haddii nimanka aan la raacdaysan inta kadawareegan lagu jira magaalooyin badan ay soo qabsanayaan xamaray kusoo aruurayaan dawladahana ayagaa rida nimankaan ogaada dawladaha ayagaa rida mar kasta aniga ilaa 4 dawlan lasoo sheegay oo ilaa Cabdullaahi Yuusuf dawlad kasta marka xilligeedu dhammaan rabo weerarada iyo qowlaha ay fulinayaan waa ka badan yihiin marka kale marka 6 bilood soo socota aad bay khatar u tahay in muddaabay isku diyaarinayeen oo anagu aan ugu qabnay inaan ka raynay oo maadaama aan wax dhicay qodobka u dambeeya waxa weeyaan kalsoonida dadka in la soo celiyo dadka la wacyigeliyo oo ciidamada iyo dadka la isku xiro xuquuqdii xurriyadda in dawladdu ka qaaday haddii tuusan yihiin kuwaan kalena ay xuquuqdii nafta ka qaadayso laba xuquuq ayaa qofkii ka maqnaanaysa marka dawladda amniga ilaalinaysa inaysan dadku xuquuqdooda siyaasiga aysan uga baqin amniga muhiim ay u tahay